Sheekada 29aad Sheekada adeegihii naxariislaawaha ahaa. Maalin ayaa Butros wuxuu Ciise ku yidhi, Sayidow, meeqa jeer ayaan cafiyaa walaalkay markuu aniga ii gafo? Ma ilaa 7 jeer ayaan cafiyaa? Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, ma aha 7 jeer ee 70 mar oo 7 ah. Taasi macnaheeda wuxuu Ciise ula jeeday in mar walba aan cafinno dadka. Kadib, Ciise ayaa sheekadan soo socota uga sheekeeyay iyaga, wuxuuna yidhi, boqortooyada Ilaah waa sida boqor rabay inuu la xisaabtamo shaqaalihiisa. Mid ka mid ahaa shaqaalihiisa ayuu ku lahaa deen aad u badan oo ninka shaqaalaha ah uusan bixin karin. Laakiin boqorkii ayaa yidhi, ninkan iyo qoyskiisa ii iibiya si addoon ahaan ah, si uu isaga bixiyo deynta. Ninkii shaqaalaha ahaa intuu jilba jabsaday ayuu boqorkii ku yidhi, fadlan ii dulqaado aniga, waan bixin doonaa deynta aad igu leedahay oo dhan. Kadib boqorkii wuu u calool jilcay ninkii, kadibna wixii uu ku lahaa oo dhan ayuu u cafiyey, wuuna fasaxay. Kadib markii ninkii ka soo tegay boqorkii, wuxuu arkay nin kale oo addoon ahaa oo uu lacag ku lahaa. Intuu ninkii ku dhegay ayuu ku yidhi, isii lacagtaydii deynta. Ninkii intuu jilba jabsaday ayuu ku yidhi, fadlan ii dulqaado, aniga ayaa lacagtaadii ku siin doonee. Laakiin ninkii wuu diiday inuu u dulqaato oo uu sugo. Kadibna ninkii ayuu xirtay ilaa uu lacagtii ka bixinayay. Niman kale oo shaqaalaha ka mid ahaa ayaa arkayay isaga markuu waxaas sameynayay, aadna way uga xanaaqeen, waxayna u tageen boqorkii oo waxay u sheegeen wixii dhacay. Boqorkii ayaa u yeeray ninkii wuxuuna ku yidhi, waxaad tahay shaqaale xun, waxaan kuu dhaafay deyntii aan kugu lahaa waayo waad i barisay. Adiguna waxay ahayd inaad u cafido deynta sidii aan kuugu cafiyey oo kale. Boqorkii aad ayuu ugu xanaaqay ninkii, kadibna wuu xiray ilaa uu deyntii ka bixinayay. Kadib, Ciise wuxuu ku yidhi, tani waa sida Aabbahay jannada ku jiro uu ku samayn doono qof kasta oo walaalkiis aan qalbiga ka cafinin.